بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا دين سلامي ولا لا ميل والبات جوكتان كسود هذا جنال كيغا داعة 25 جنال. موقال كان مانتو حول حريرة موقال كي هراء أها ومحي أخلاق أما أخلاق ذا ونكسن إن شاء الله مانتا نوحان كهدي دونا قيب كمد نوعية أخلاق ذا كسود هو موقالك. noocyada akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah fikir wanaagsan, filasho fiican iyo laab xaaran oo wanaagsan. Akhlaaqda iyo dabeecadaha wanaagsan waxaa ka mid ah malada fiican ee dadka kale laga fisho, waayo qofka waxaa u wanaagsan inuu markasta dadka kale ka fisho wanaag, shakigana uu ka fogaado. Samafalka akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah samafalka. Qofka wanaagsan meel kasta oo uu tago samafalkiisa ma joogsado. Mar kasta oo aad arrin wanaagsan samaysidna xumaanta ayay ka dhowrtaa. Arrintaas wanaagsan ee aad samaysay dhibaatadana way ka hortagtaa. Balanta oo la dhowro akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah balanta oo la dhowro oo la oofiyo. Waana mid ka mid ah astaamaha lagu garto qofka mu'minka ah ee akhlaaqda wanaagsan. waayo qofka mu'minka balanta ma jabiyo. Dhamaanteena waan wada ognahay in dadnimo iyo balanka baax aan meel isla galeyn. Salaanta akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah in la is salaamo oo la dhaho assalaamu calaykum qof walba oo ka hor imaada, haddaad taqaanid iyo haddaadan aqooninba. arrinkaasna waxaa na faray nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam qofka aan garanayno iyo qofka aan garanayninba inaan salaano. waana mid ka mid ah sababaha ay dadku isku jeclaadaan. xiriirinta qaraabada akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah qaraabada oo la xiriiriyo. waana mid ka mid ah dhaqamada uu Alle ugu jecel yahay cimri dheer iyo xoolo badanna lagu dhaxlo. runtii qodobkan qaraabo xiriirinta waa mid badankeenu aad uga yar yahay oo waxaad arkaysaa mararka qaar dad isku hooyo isku aaba oo aanay muddo wada hadal. sadaqada akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah sadaqada oo la bixiyo lana siiyo faqiirinta iyo kuwa kale ee u baahan. waana mid ka mid ah sifooyinka lagu garto qofka akhlaaqda wanaagsan. maxaa yeelay qalbi dahab ah ayaa Alle ku manaystay. qofka wax bixinta badan waxa uu og yahay in sadaqada ay ka mid tahay camalada ugu wanaagsan ee la qabto, Ilaahayna uu jecel yahay. ceebaha dadka oo la faafin runtii waa sifo ka maqan in badan oo naga mid ah. in walaalka ceebihiisa aadan faafinin ama sirihiisa oo aadan ka hadlin gadaashiisa runtii waa astaan ay leeyihiin dadka qiimaha badan isla markaana istaahila in la ixtiraamo. waalidka oo loo samafalo akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah waalidka oo loo samafalo. dadka oo dhan way necab yihiin caasi waalideenka. qofka caasiga waa mid aad u akhlaaq xun, erey bixino intaa ka xun ama ka culus ayuu istaahilaa oo waa qof xumaantiisa aan la tilmaami karin. hadalka iyo carabka qurxoon qofka akhlaaqda wanaagsan hadalkiisana uu wanaagsan yahay. qofka wanaagiisa waa uu ku amaanaa, kan xumeeyana wuu u qoslaa, waa uu wanaajiyaa. run ahaantii noocyada akhlaaqda aad ayay u fara badan yihiin, lamana soo koobi karo. waxaa ka mid ah samirka, dulqaadka iyo wixii la mid ah. haddaba maxaa ka qurux badan in aadanaha uu noqdo mid akhlaaq suuban, isku dhimriyo, isku nasteexeeya, isxaq dhowrana. bani aadamka wuu dhintaa, balse waxaa haraya waa dhaqanka iyo akhlaaqdiisa suuban oo aan marnaba dadka kale ka go'ayn. haddaba ha noqdaan walaal waxa lagu soo xasuusanayo markii aad tagtid kadib wax wanaagsan. ugu dambeyn waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtiga aad ku bixisay daawashada muuqaalkan. jazaakum allahu khayra. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala وبركاته.
weligaaga daacad ahaaw.